بذي الوحيين إشراق البرايا ويقوى السد في وجه الغواية إلى الرحمن يممن المطايا بهدي الله نبلغ خير غاية بهدي الله نبلغ خير غاية كتاب الله منهل كل ضامن ومورد من تعطش للهداية وسنة أحمد مسك الختام سراج النور من جمع المزايا هما النبع بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إن شاء الله تعالى وعن كهذا دورنا شخصية قفك مسلمك وكي قفك مسلمك شخصية ديسو مقف وحود دون راعة عدو دون كامر قاطة سيدو دون أرقما مسقف إلهي سبحانه وتعالى كحرا عن اسكو دينا سؤالها أن جوابته أرادين دونه إن عوانكي محاضرة عن جيدين دونه أما هوشا عن إن شاء الله كهد دونه علماء عن كسوكو بيني إن اسكو دينا إن شاء الله تعالى مدول بين دول استاقن انت أن لو قد قرين موضوع وينا marka qofka muslimka ama shakhsiga muslimka ma qof wuxuu doono iska raaca haday hawadiisa tahay haday maadii kala tahay haday cidu doono tahay ma qof saasa mise waa qof ilaahay ku xidhan subhanahu wa ta'ala qofka muslimka ma qof laba wajiila aba oo marba maalinta meesha uu tago wajigeeda qaata mise waa qof allihii abuurtay isu dhiibay oo adoon u ah qofka muslimka ma qof wax bedeli kara oo adduunka wax ku soo kordhin kara mise waa qof isaga dadkii ilaahay subhanahu wa ta'ala laga ducaysanayay ee mabda'ooda aan la raacin ay wax ku shubtaanba mise waa qof isagu wax soo kordhiya oo go'aankiisu uu yahay go'aan ummadda uu wax ugu tarayo ama fikirka uu dadka wax ugu qabanaya mise waa qof ciduu doona iska raaca isagana wax la geliyo qofka muslimka ah ma qof waqtigiisa dayaca mise waa qof ka faa'iideysta inta yar ee adduunka uu ku nool yahay qofka muslimka ah ma qof يعني waqtigiisa ku bixiya in uu cid aan dan u hayn taageero oo waqtigiisa ku lumiyo oo u soo jeeda mise waa qof ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiran oo awqaadiisa iyo waqtigiisa kaga faa'iideysta allah wuxuu ugu talagalayba marka waxaan isku daynaa insha Allah ta'ala ciwaanada inaan dul istaagno oo aan dadka fahansiino qofka muslimka waa kee tarbiyaddeebu wataa dhaqankiisu waa sidee ilaahay muxuu ugu talagalay subhanahu wa ta'ala ma qof inta adduunka lagu soo daayay saa lagaga tagayba mise waa qof inta adduunka la keenay haddana loo tilmaamay wixii loo keenay oo qaatayba ama ka tagi marka waxaan isku daynaa insha Allah ta'ala inaan qofka muslimka ka hadalno iyo sifada uu leeyahay hayalay qofka muslimka ma qof la diiniya isagoo islaam sheeganaya mise waa qof allihii abuurtay ku kalsoon iyo sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam wax badan waxa inaga dhaadhacsan xaqiiqatan inaynu magacii sheegano haddana ilaahay kitaabkiisa dayacno sunnadii nabiga dayacno sallallahu alayhi wasallam qofka muslimka ma qof ay hogaamiyaan waxa uu bartay ee maadiga ah inay isaga hogaamiyo macnaha uu noqdo inay aqligiisii hogaamiso cilmiga yar uu bartay ee maadiga mise waa qof ku dhisay maadidiisa mabdi ilaahi subhanahu wa ta'ala waxaad arkaysaa shakhsi xaqiiqatan
laga yaabo wax yar uu bartay inay ka qaalib noqoto oo mabdii dhammaay ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray uu ka hormariyo. marka shakhsiga muslimka ma mid laga cararaa mise waa mid lagu soo cararo? ma mid laga naxaa mise waa mid dadka u naxariista? intaasoo dhan insha allahu tacaala iyadoo adiladeeda leh, hadday aayaad tahay iyo hadday axaadiis tahay, ciwaan walba waxaan isku daynaa inaan mar soo qaadanno si ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu anfaco. ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu noo waafajiyo wixii xaqa. waxaan diyaarinaynaa wax culummada ay diyaarisay oo dadka aan sii gaarsiino. wax annagu aan diyaarinayn maaha, waa wax shakhsi kaa horreeyey oo muslim ah uu waqti ku bixiyey, laakiin annagu aan soo gudbinayno wixii uu sheegay wax ka mid ah. marka intaasaan isku daynaa insha allahu tacaala inaan ciwaanada ka dhigno oo aan dadka fahansiino qofka muslimka waa kee. ma cilmaani baa, ma shuuci baa, ma laadiini baa, mise ilaahay buu ku kalsoon yahay subxaanahu wa tacaala? waqtigiisa ma ka faa'iidaystay oo allah subxaanahu wa tacaala aayaadkiisa iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo salaadiisa in dhowr ma kaga faa'iidaystay mise waa daayac? waxaan dadka u caddaynaynaa qofka muslimka waxa kaga aadan inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala suu ku adeeci lahaa iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam. qofka muslimka waa qof xaqiiqatan la soo ilaaliyey oo mabda' la soo siiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala soo dhowray oo maanta haysta wuxuu ku faani karo oo uu kaga faani karo oo yacni ugu faani karo bulshada kale ee laadiiniga ah. maxaa yeelay allah subxaanahu wa tacaala wuxuu soo siiyey mabda' xaqiiqiya oo allah subxaanahu wa tacaala uu ku dhowray. waxaan ku soo gabagabaynayaa qofka muslimkaa waqtigiisa ma dayaco ee uu ka faa'iidaysta. waxaan bilaabi doonnaa insha allahu tacaala muxaadarooyin 5 daqiiqa oo mid walba aan ku dul istaagayno ilaahay waxa uu ka yidhi iyo wixii sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam lagu sheegay oo ku aadan qofka muslimka waa kee. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.